madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar wax laga weydiiyay gobolada SSC ka gaabsaday ka hadalkooda. Halkan uma soo fadhiisan inaan madaxweynaha dhaleeceeyo maxaa yeelay dawladda Soomaaliya iyo maamuladeeda midna ma soo gaadho gobolada SSC. sidaa darteed micno uma samaynayso ka hadalkooda. laakiinse xukuumadda Soomaaliya lama arrimood kama wada qabato gobolada SSC inay ka hadalkooda iska diido iyo inay jagooyinka magacyaalka ah ee ay ku lahaayeen dawladda Soomaaliya ay siiso maamulka Puntland. sanadihii u dambeeyay dawladihii Soomaaliya soo maray waxa ay kuraasta reer Khaatumo ay ku raali gelinayeen maamulka Puntland oo aanay ka mid ahayn waana godobta ugu weyn ee laga galay reer SSC. maamulkaas oo soo xulayay dad aad moodo in lagu yidhi Muqdisho iska jooga oo meelna ha u dhaafina waxana ha qabanina. maamulka Puntland waa ku ceeb inay hadiyad u qaataan gobollo aanay ka talin ama maamulkooda hoos tegin. dhanka kale ha ogaadaan shacabka reer SSC inaanay dawladda Soomaaliya aanay iyagu u baahnayn laakiinse ay dawladda Soomaaliya iyaga u baahan doonto.